ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. shinida marka laga sheekeeyo guriga ay samayso iyo shaqada ay qabato, sheekh baa isla marka sheekeynayay wuxuu yidhi shinida markuu ilaahay leeyahay wa awxaa rabbuka ila an-naxli an ittakhidii min aljibaali buyuutan wa min ash-shajari wa mima yacrishuun, idan baa la siiyey saddexdaa meelood guriga ka dhigo, shajar geedaha iyo buuraha iyo guryahay dadku dhistaan intaba. uma kulii min kuli thamaraati faslukii subula rabbiki dulula. marka waxaa la darsoo la ogaaday culimmadii hadda ka horna inoo sheegay, haddana culumtan horumarka la gaaday iyo buxuudtan ay soo saareen, shinida baxda ee geedaha midhaheeda soo cunaysa way ka duwan tahay kuwa guriga lagaga tago. gurigaas ka baa laga taga, waxaan dhanna boqortooyo waay wada dhisan, boqoradaas ridaheeda ayaa kulli mutiicin ay u yihiin ka dambeeya. marka kuwa guriga sii jooga iyo kuwa tegay way fogaanayaan. markay fogaadaan ma soo haleeli karaan, ma soo garanayaan gurigii ay ka tageen, laakiin maxay kusoo helayaan? fasluki subula rabbiki dulula. tadliilka ilaahay u sameeyey waxaa la waa dabdabaad laa silkiya. sheekhu dabdabaad laa silkiya maxaan oran karnaa? yani dabdabaad laa silkiya wireless waay. dabdabaadkana maxaa la yidhaha? mawjaad wef baa la is dhihi karaa miya? taasay soo diraysaa. marka kuwa guriga joogaa soo diraya, kuwaasina anteena ilahay u sameey, anteenaday kusoo qabsanayaan, anteenadaasi kusoo qabsanayaan, waa soo soconayaan, soo socay leedahay heble hebla soo soco, halkaasaad maraysaa halka ilaa ay guriga kusoo hagto ay gurigeeda kusoo noqoto. man callamaha yaabana mish mushkila ha isku mashquulinina, intaas waa iska fahmaysiin. af soomaaliga moogtahay mushkilo badan. beri dhaweyd baan anagoo muxaadaro jeedinaya, waxaan lu-lu laga hadlaya, lu-lu waxaan lu-lu af soomaaliga ku sheega, dayman waa af ingiriis soo ma? lulna waa af carabi, af soomaaliga ku sheega. markii sidaas oo kale isku celceliyay ayuu mid oday halkaa ka hadlay, sheekhow xoolaheena umahan geeliya lo dhan weydii. xoolo noomahan bu edi taas, hadday xoolo noo ahaan lahayd magaceeda waa garan lahayn. marka hadda tanna waxba isku mashquulinin ee tanka fiiriya. fasluki subula rabbiki dulula soo ma? horaan marka arrintaas ka yani cilmi ahaan diiniyan iyo mashaaikhdii kasoo maqlay iyo tafsiirka dadka ka hadla. beri dhaweyd baa marka idaacadda qanaat aljaziira ayuunba ilahay gu beegay barnaamij ay kaga hadlayaan maraykanka oo laga cabaadayo oo laleeyahay shinidii baa yaraatay. ayib marka khubaraa la isu keena, waxaa la shinidii maxay u yaraatay? oo malabkii baa yar oo shinidii baa yaraatay, dhibaataa timi. waxay dhaheen asaas almushkila ugu weyn waxa waaye shinidu waxay ku nooshahay guryaheeda ku timaadaa dabdabaadkaas, mawjaad sawtiya ay ku timaadaa. marka telefoonkan iyo waxaan iyo iphone-nadan iyo alaabtaan ay shaydaankan soo galay ayaa wuxuu khalal ku riday shinidii gurigeeda imanaysay, dabdabaad kalaa meesheeda timid. marka guryihii uma soo hoyanaysa, meelahaasay ku dhidhimataa. anaa jaziira ka dhegaysta. wa min ashajari wa mima yacrishuun uma kulii min kuli thamaraat fasluki subula rabbiki dulula. taas waa subula rabbiki dulula, wadooyinka rabbiga dulula tadliilan ilah baa u saay. yakhruju min butuuniha, asaaska waxaan dhan ilahay u sameeyeyna adigaa lagu qudinaya insaanka, ilahay suu ku jeclay. yakhruju min butuuniha sharaabu mukhtalifun alwaanuhu fiihi shifaaun linnaas. fiihi shifaaun linnaasi malabkana waaba mutafaq caleyhba inuu shifaa linnaasi uu yahay. bayn alkaafir walmuslim kulligood waa adwiyada iyo sharikaat aladwiya waxaa lagu leeyahay dawo uusan qeyb kamida uusan ku jirin waa yaryahay malabku, leanna cilmiga ilaahay baray shinida ciduu baray male. hada huwa rabu kuli shay, wa rabu naxli wa rabu lmakhluuqaati kuliha. marka yani waa la yaabay barnaamijkaas maalinta ilahan baa igu soo beegay, mabaanan u qasdin bay qanaat aljaziira oo ka hadlaysa oo le asaas almushkila waxay ka socotaa dabdabaadkan iyo mawjaadkan ayaa subula rabbiki dululan mashaakil u keenay oo shinidii meel ay usoo hoyata male, tanaa kasoo dhex gashay.